السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka dib waxa sano waqtiga gumaysiga ee Liibiya waxa jidho maskaxdeena ku soo dhacay halii geerida u bareeray Umar al-Mukhtar iyo muuqaalku matalaya Antonio Quinn filmka taariikhiga soo taan goobta dadalaada aragiisuna eegayo dhulka halka dhanka dhawr cadayntu ay soo riixaysay wajka General Krizani lagana yaabo in maskaxda ku soo xaadireen haliye kale oo soo maray Liibiya kuwaas oo taariikhdu diiwaan gelisay nafirkooda xisaabta rahayn balse waan ka xumay laga yaabo kuwa xasuusanaa taariikh fiican ka hayn fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo dir taabanaya buttonka subscribe sidoo kale si uu barnaamijka u gaaro dad fara badan like garee siina share garee waad mahadsan tahay ku soo dhow mar labaad muuqaalkiina maanta. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. boqor Idris Sanusi waxa uu hogaamiyay horeeyay Liibiya xukunka u qabtay kadib markii ay madaxbannaanida ka heshay Talyaaniga sanadkii markuu 1951 bishii December 24 waana mid ka mid ah taariikhda halgamadii dhistaanka oo dawladda bal la masaxay iyadoo loo maray laga been abuuro iyo kutubta wax ka qorta laga meero iyo waliba in nidaamka waxbarashada Liibiya laga weetay taariikhdiisa magaciisu waa Maxamed bin Mahdi bin Maxamed bin Ali Sanusi al-Khatabi al-Idrisi waxa ku dhashay koonfur bari Liibiya 12 bishii 1890 miilaadiga waxaan soo koriyay abihi kaasoo markaa ku guda jiray faafinta madhabka Sanusiyiinta waxaanu madhabkaasi ku faafiyay waqooyiga Afrika oo dhan xilligii uu isagu hogaaminayay waxaanu islamiyay Quraanka isagoo culumta diiniga ay kalena ka baran jiray culimada Sanusiyiinta ee halka joogtay waxaana ka mid ah culimada diinta Ahmed Abu Yusuf Hussein Sanusi iyo waliba Ahmed Sharif inta ka dib sanadkii markuu 1902 waxa uu jiray suubariyay magaalada Barqa waxaanu jago wacan ku maamulayaasha madhabkan ama haddaan si kale u dhigo wuxuu aan ururka laga jecel yahay waayo awowga ayaa asaasay dariiqadan haddaba 1914 waxa uu jiray subaxay safarkiisii u horeeyay oo dalka Liibiya kaga baxay waxaanu ku socday xajka isagoo sii maray Masar waxaanu martaan ugu dayay qasrigii Khadif Cabbaas labaad ee Masar sidoo kale Xijaas kula kulmay Hussein bin Ali oo markaa odaygii Makka isagoo markii dambe hogaamiye ka noqday dhulka Xijaas oo dhan haddaba kadib markii uu soo noqday Idris waxa uu majraha qabtay ururka Sanusiyiinta sanad markuu 1916 oo uu kala wareegay naadeerkii kadib markuu dhowr dagaal ku jabay waxaanu dib u habeeyay xarakadii soo ku haminay inuu Liibiya ka saaro isticmaalkii soo galay 1912 kadib markii hoggaanku qabtay dhaqdhaqaaqii Sanusiyiinta waxa boqor Idris la galay nuskii dambe ee qarnigii 20aad tagay gorgortan Talyaaniga joogay magaalada xeebeedka Suwaytina isagoo sidoo kale gorgortan ka galay magaalada Tobruk iyo Rajma waxaana ka mid ah shuruudaha ugu waaweyn ee siteen in Idris Sanusi ay u aqoonsadeen amiirka ismaamulka gaarka ee waaxaa Jacbob Jaalu iyo waliba Kufra oo fadhiisanaya magaalada Ajdabiya iyo heshiiska Abu Maryama iyo la kulankii uu Idris la kulmay wasiirka mustacmarka Talyaaniga ee Amandola
sanadii 1922 haddaba ma sii jirin xukuumadda ajnabiga in badan maxaa yeelay Talyaanigu wuxuu doonayay inuu buriyo heshiiskii kadib markii kolonyadii faashisto ay ruqaanseen Roma waxaanu intaa kadib Idriis go'aansan inuu safar ugu baxo Masar waxaanu mas'uuliyadda xiriirka kaga siitay walaalka oo isaga ka yar oo lagu magacaabay jiray Maxamed Rida waxaanu sidoo kale sanadii 1922 ugu magacaabay Cumar al-Mukhtaar inuu noqdo taliyaha jihaadka militariga haddaba taariikhdu markay 1923 waxa Cumar al-Mukhtaar safar ugu baxay Masar isagoo rabay inuu Idriis u soo bandhigo natiijadii shaqadii uu qabtay intuu dalka ka maqnaa waxay soo dejiyeen khidado cusub oo loo baahnaa in mujaahidiintu ka howlgalaan iyo waliba magacaabida sarkaallo iyo la qorsheeyay faqada ku baxaysa inta kadibna waxa uu Idriis arrintii dhabarka ugu tuuray Cumar isagoo ku andacoonay inuu arrimo siyaasadeed ka wado Masar si kastaba ahaatee markii la dadalay Cumar sidoo kalena uu dilaacay dagaalweynihii labaad sanadii 1939 waxa uu Idriis ahaa mid dhinaca saaray dhanka xulafada isagoo wixii inta ka dambeeyay ku biiray waxaanu heshiis la galay Britain waxaanu Liibiya dib u soo galiyay ciidan mid walba meel ku aasmay oo harakadii iyagoo Talyaaniga meesha ka saaray sanad markuu 1940 markii dagaalku dhamaadayna waxa boqor Idriis ku soo noqday dhulkiisii waxaanay Liibiya ahayd markaa laga soo bilaabo ama sanadii 1944 mid ku hoos jirta xukunka Britain iyo Faransiiska markii uu Liibiya ku soo noqdayna waxa uu soo saaray dastuurkii Barqa oo ka koobnaa 204 maado way ka mid yihiin kafaala qaadashada xorriyadda aqoonsiga fikirka sinaanta u dhaxaysa qabiilada iyo waliba xorriyadda lahaanshaha soo kooda dastuurkaasi wuxuu sheegay in kala dawladda Astuuriya oo tirkeedu yahay golaha wakiilada inta ka dibna sanad markuu 1946 waxay Roma madax bannaanida siisay Liibiya inta kadib markii la aasay ururkii ugu horeeyay qaran oo matalaya dhammaan gobolada Liibiya sida Tripoli, Fezzan iyo waliba Barqa bishii November 2020 1950 Idriis ka sheegay balakoonka qasriga Almanar ee magaalada Benghazi 4 December 1950 in madax bannaanida iyo dhalashada dawladda Liibiyana oo madaxeedu bannaan yahay tahay marihii mujaahidiinta soo halgamay waxaanu nafahaantiisa isku naanaysay inuu yahay boqorka boqortooyada Liibiya ee midaysan isagoo sheegay inuu awoodiisa u adeegsan doono si waafaqsan dastuurka isla sanadkii xigay ee 1953 waxay ku biirtay Liibiya jaamacadda Carabta halka sanadii 1955 ay ku biirtay qaramada midoobay بسم الله الرحمن الرحيم إلى شعبنا الكريم يسرنا أن نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 من نوفمبر سنة 1949 قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة وإنا لنبتهل إلى المولى عز وجل بأخلص الشكر وأجمل الحمد على نعمائه ونوجه إلى الأمة الليبية أخلص التهاني بمناسبة هذا الحادث التاريخي السعيد ونعلن رسميا أن ليبيا منذ اليوم أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة si kastaba ahaatee wuxuu waajay boqol Idriis caqabado badan ama kuwii ugu adkaa taariikhda Liibiya cusub soo hojoodigiisu dhan ku bixiyay inuu yagalay dawlad shacabkeedu midaysan yahay oo isjecelaashada kheyraadkeeda soo sidoo kale rabay inuu shacabka reer Liibiya maskaxdooda ka tirtiro muuqaalada xumaaya ee uu ku reebay faashista Talyaanigu soo kale laga boogdhayo dadka eheladu ku dhinteen waad garan kartaa aadba in juhdi badan ay u baahantay dawladda hadda ka soo baxday xeradii gumaysiga dulnimada laakiin haddana uu awooday boqol Idriis dhisidda magaalooyin qurux badan yimadeenta qabeesha walaalaha halka degan isagoo Liibiya cagta u saaray wado nadiif oo bilaa turuntura waxaana dawladda Curdiga ka shaqeysaa abuuritaanka hay'ado cusub dib u magaalooyinka magaalooyinka dib habeynta jidadka ay burburiyeen dagaaladu dib u dejinta dadka dhiirigelinta iyo horumarinta wax soo saarka qaranka iyo warshadaha isagoo kale bilaabista ka faa'iideysiga kheyraadka dabiiciga ah iyadoo loo marayo in ku dida golaha qaranka qorsheynta dadweynaha kaasoo dejiyo qorshe horumarineed oo dhan 5 sano oo inta badan loogu talagalay horumarinta beeraha iyo mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha dhan kale wuxuu boqol Idriis ahmeed siiyay waxbarashada iyadoo loo marayo in la carabiyo manhajka dalka lana kordhiyo loo ballaariyo aqoonta manhajta halka uu dhiirigeliyo waxbarashada hablaha
iyo weliba furitaanka maxalli lagu tababaraya macallimiinta. haddana ula dhanka siyaasadda Liibiya kadib gumaystii waxay boqortooyadu ku dadaashay xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda mucaaradiinta iyagoo si toos ah oo qaawan u dhalin jiray boqortooyada. waxaana taa ka markhaatiya in si nabad ay Liibiya ku soo mareen 11 xukuumadood muddo ah 18 sano gudaheed. haddaba waxaan ku soo gabagabeynay muuqaalkayga qaar ka mid ah xikmadii ama oraahihii Idriis ama boqor Idriis. xadaaradda uu doonayay inuu Talyaanigu soo geliyo dhulkeena waxay naga dhigaysaa qaar addoomo ah duruufaha nolosha. sidaa daraadeed waxay nagu waajibeen la dagaalanno. waxaan kula talinayaa walaalahayga Carbeed inay si buuxda u qabsadaan diinta kana caarigtaan akhlaaqateeda sareysa sidoo kale ay midoobaan maxaa yeelay cidna ma loodo shacab sifooyinka leh. intaas ayaan ku soo koobayaa taariikhda boqor Idriis. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.